بسم الله الرحمن الرحيم وهبينما قميصة تضبية لباتن كأغسطو لبكن يلحي لباتن oo ku beegan 14 bisha Rabiicul Awwal sanada 1448 taariikhda Hijriga ku soo dhawaada barnaamijka qubanaha qodobada caawa wararkeena ku jira waxa kamid ah oo fariin toos ah u dhiibtay Qatar taasi oo ay ku sheegtay in talaabo kasta oo Mareykanku qaado ay musiibo ku noqon doonto danaha military iyo kuwa dhaqaale ee Mareykanka dhinaca kale xog xasaasi ah oo caawa soo baxday ayaa sheegaysa in dhaqaale xumo saameysay mushaarkana ay soo food saartay ciidamada Mareykanka Trump oo dhankiisa ku faanay in Iran ay ku jirto marxalad adag isla markaasina uusan doonayn in uu wax wada hadal ah oo la yeesho Ruushka oo si cad u sheegay in uu beegsan doono xarumaha military ee Britain ay ka samaysato Ukraine tani waxay ka dambeysay kadib markii Moscow ay sheegtay in hub Britain uu ku taageeray Ukraine lagu soo weeraray ciidamada Suudaan oo shaaciyay in ay soo rideen diyaarad dagaal oo dhanka Ethiopia ka soo gashay sheekada ugu dambaysa ee barnaamijkan idinkugu hayna caawa waxa ay ku aadan tahay lamaana da'dooda marka la isku daro ay ka badan tahay 210 sano oo isqabay in ka badan 80 sano oo noqday lamaanaha ugu da'da weyn ee isqaba waxa ay ka sheekeeyeen sirta guusha guurkooda sheekadaas ha moogaan dhammaan qodobadan iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaan idinkugu haynaa barnaamijka qubanaha soo dhawaada mar kale daawadayaal caawa waxaan ku bilaabaynaa xiisadda Ruushka iyo Britain Ruushka ayaa ku hanjabay inuu beegsan doono xarun kasta oo military oo Britain ay ku leedahay Ukraine isagoo ka jawaabaya weeraro ay ciidamada Ukraine ay gudaha Ruushka ay ku qaadeen kuwaasi oo ay u adeegsanayaan gantaalada Britain afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka Maria Zakharova ayaa waxa ay galabta ay sheegtay in Britain iyo Faransiisku ay dab ku ciyaarayaan kadib markii ay Kiev ay siiyeen tiknoolajiyad casri ah oo gantaalada la xiriirta waxay ka digtay in talaabadaasi ay cawaaqib aan la saadaalin karin ku yeelan karto London iyo Paris hanjabaadan ayaa timid kadib markii Britain iyo Faransiisku ay ballan qaadeen in ay kordhinayaan taageerada military ee Ukraine Britain ayaa waxay sheegtay in Kiev ay siinayso tiknoolajiyad sirc ah oo u saamaxaysa inay gudaha dalka ay ku soo saarto gantaalada ridada dheer ee Storm Shadow loo yaqaano halka Faransiiskuna uu ogolaaday ruqsadaha arrintaas war kale oo arrimaha la xiriirana warar Mareykanka laga helayo ayaa sheegaya in agaasimaha CIA-da ee dalkaasi Mareykanka John Ratcliffe loo diray Moscow si uu wada hadallo ula yeesho mas'uuliyiinta Ruushka ugana digo weerar Ruushka uu ku qaado dalalka NATO Kremlinka ayaa beeniyay wararka sheegaya in uu qorsheynayo weerar ka dhana xubnaha NATO dhanka wada hadaladana afayeenka Kremlinka Dmitry Peskov ayaa waxa uu sheegay in Moscow ay weli diyaar ay u tahay inay sii wado sawdisteeda wada xaajoodada nabadda balse uusan cayimin taariikhda cusub sargaal sare oo Ukraine ah ayaa sheegay in wada hadallo cusub oo ay ka qayb qaadanayaan wakiilo Mareykan ah ay dhici karaan bishii September dagaalka Ruushka iyo Ukraine oo bilaabmay bishii February 2022 ayaa weli socda iyadoo Moscow ay ku adkeysanayso talabaadkeeda ku saabsan bariga Ukraine iyo Crimea markana dagaalka Suudaan ciidamada dawladda Suudaan ayaa maanta sheegay in ay soo rideen diyaarad drones ah oo ay ku tilmaameen mid cadow ah taasi oo la sheegay inay ka soo gudubtay xadka Ethiopia soona gashay gobolka Niilka Buluuga ee koonfur bari Suudaan bayaan ay ciidamadu soo saareen ayay ku sheegeen in drone-kan laga soo riday ay meel waqooyiga ka xigta deegaanka Sidcom ku dhacday ciidamadu ma aysan shaacin cidda iska lahayd diyaaradda halka laga soo riday nooca ay ahayd iyo ujeedada howlgalkeeda tani waa diyaaradii saddexaad oo drones ah oo ciidamada Suudaan ay sheegeen inay maalmo gudahooda ay ku soo rideen gobolka Niilka Buluuga ah wasaaradda difaaca ayaa horay u sheegtay in laba diyaaradood oo kale la soo riday Axaddii iyo Isniintii ciidamada ayaa sidoo kale sheegay in tan iyo bilowgii Agoosto gobolka waqooyiga Kordofan ay ku soo rideen saddex drones ah oo nooca F-95 bishii Luuliyana afar kale ayaa sheegeen inay burburiyeen ciidamada Suudaan mas'uuliyiinta Suudaan ayaa ciidamada taageerada degdega ah ee RSF ku eedeynayay in diyaaradahan aan duuliyaha lahayn ay ku beegsanayaan xarumaha rayidka Suudaan waxa ay tan iyo bishii April 2023 ka socda dagaal u dhaxeeya ciidamada dawladda iyo RSF kaasi oo lagu dilay 10,000 oo qof halka ku dhawaad 13 milyan oo qof ay ku barakaceen sida ay qiyaasaha ay soo saarayaan hay'adda qaramada midoobay iyo hay'adaha caalamiga ah kale imankana Kuwait dawladda Kuwait iyo
Pakistan ayaa maanta kala saxiixday heshiis cusub oo iskaashi difaac iyo militari ah xilli wasiirka difaaca Kuwait Sheikh Abdullahi Ali Abdallah Al Salim Al Sabah oo booqasho ku jooga Islamabad. heshiiskan ayaa waxaa lagu xoojinayaa sida la tilmaamay isku duwidda howlgallada militariga ee dhanka ciidamada, isweydaarsiga khibradaha militari, tababarada iyo sar u qaaditaanka diyaargarowga labada dal. saraakiisha ayaa heshiiska ku tilmaamay tallaabo muhiim u ah oo lagu ballaarinayo xiriirka difaaca, laguna taageerayo amniga iyo xasiloonida gobolka. wafdiga Kuwait ayaa sidoo kale magaalada Rawalpindi kula kulmay taliyaha ciidamada Pakistan General Qasim Munir, iyagoo ka wada hadlay xaaladda amni ee gobolka iyo iskaashiga difaaca ee labada dowladood. heshiiskan waxa uu imaanayaa toddobaadyo kadib markii Pakistan, Sacuudi Carabiya iyo Turkigu ay 7 Agoosto magaalada Makkah ay ku kala saxiixdeen heshiis difaac wada jir ah, kaasi oo dhigaya in weerar lagu qaado hal dal oo loo arki doono weerar lagu qaaday dhammaan saddexda dal ee kale. وهاجاك داوديال waxaan ugu soo fool leh wararkii ugu dambeeyay ee xiisada Mareykanka iyo Iiraan iyo qodobo kale shakadii ugu dambeysana barnaamijka waan idinkugu haynaa balse qadar xaysiisa soo dhawaada mar kale daawadayaal wali waxaad la socotaan barnaamijka qubanaha oo toos idan kaga imaanaya stuudiyaha labaad ee HBN wararkeena iyo barnaamijyadeena waxaad ka heli kartaan baraheena bulshada Facebook, YouTube, Twitter ama Telegram iyo boggeena ee website-ka oo aad wararkeena ka akhrisan kartaan iyaga oo macluumaadyo kale oo dheeraada ay la socdaan hbnonlinetv.com ayaad wararkeena kala socon kartaan mar walba. markaana xiisada Iiraan iyo Mareykanka, madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu sheegay in Iiraan ay ku jirto waa sidoo hadalka u dhigay dhibaato weyn isla markaasina aysan awoodin inay bixiso mushaaraadka ciidamadeeda. Trump ayaa waxa uu sheegay in tallaabooyinka Mareykanku ka qaadayo Iiraan aysan micnaheedu ahayn in Washington ay ka tanaasushay dhinaca militariga. madaxweynaha Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in dalkiisu uusan doonayn in Iiraan uu la hadlo isla markaasina aysan Washington raadinaynin inay kulan la yeelato Tehran. Trump ayaa intaasi ku daray in marinka Hormuz uu furan yahay isla markaasina Mareykanku uu gabi ahaanba ka nadiifiyay miinooyinka. war kale oo arrimahan la xiriirana wargeyska The Guardian oo ka soo baxa magaalada London ayaa waxa uu soo xiganayaa dukumiintiyo laga helay saraakiil ka tirsan ciidamada badda Mareykanka kaasi oo sheegaya in dagaalka Iiraan ciidamada Mareykanka ku sababay dhibaato dhaqaale oo aad u daran, taasi oo ku qasabtay ciidamada badda Mareykanka in lacago ay ka jiraan miisaaniyadda mushaarka ciidamada shaqaalaha ee badda shaqaalahan looga jaro iyadoo ila kale sidoo kalena la tilmaamay in lagu daboolayo ama lacagahaas la jarayo lagu daboolayo qarashaadka howlgallada ee dagaalka ee Mareykanka bariga dhexe. The Guardian oo soo xiganaysa qoraal ka soo baxay Pentagon-ka oo ku saabsan maalgelinta ciidamada badda ayaa waxa ay sheegtay in ay jirto lacag yaraan ku timid xisaabaadka mushaaraadka, taasi oo ka dhalatay kadib markii wasaaraddu lacagahaasi ay u isticmaashay maalgelinta howlgallada dagaalka. wargeyska The Guardian ayaa sidoo kale soo xigtay sargaal iyo qandaraasle la sheegay in ciidamada badda Mareykanka uu la xiriiray kuwaasi oo sheegay in dib loo dhigay howlaha dayactirka ee aan degdeg ahayn ee xarumaha ku yaala dhulka sabab la xiriira dhibaatooyin dhaqaale oo jira. dhanka Iiraan xogayaha golaha amniga qaranka ee Iiraan Mohsen Raisi ayaa waxa uu sheegay in haddii Mareykanku uu bilaabo tallaabo kasta oo ka dhan ah dalkiisa ay musiibo ku noqon doonto danaha military iyo kuwa dhaqaale ee Mareykanka. xafiiska xogayaha golaha amniga qaranka ee Iiraan Raisi ayaa sheegay in kulan uu la yeeshay ra'iisul wasaaraha dalka Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ay kaga wada hadleen in Tehran aysan ku kalsoonayn Mareykanka isla markaasina Washington ay tahay inay fuliso shuruudaha Tehran ka hor inta aan la furinin marinka Hormuz. isla wararka Iiraan madaxa wadaxaajoodyada Iiraan ahna gudoomiyaha baarlamaanka dalkaasi Iiraan Mohammed Bakhar Khalibaf ayaa ra'iisul wasaaraha Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani waxa uu sheegay in maamulka Trump uu qaato go'aano qaldan oo ku saleysan macluumaad qaldan isaga oo qasaarinaya dhaqaalihii Mareykanka xasilooni darrana ku abuuraya gobolka. Khalibaf ayaa waxa uu sheegay in go'doominta dhaqaale ee Mareykanku ku fashilmi doono isagoo intaasi ku daray in Washington ay tahay inay fuliso ballanqaadyadeeda ku saabsan heshiiska MOU-ga ah ee safgaradka ah ee labada dal. war kale oo arrimahan la xiriirana ila ka tirsan maamulka Trump ayaa warbaahinta u sheegay in heshiis kasta oo dhexmara Iiraan iyo Cumaan uusan qusin Mareykanka. isha ayaa sidoo kale ku celisay sheegashada ay dowladda Mareykanka marar badani ay jeedisay ah in marinka Hormuz uu furan yahay isla markaana dhammaan miinooyinkii laga saaray.
waxaa sidoo kale ay sheegtay inaysan jirinin wadaxaajoodyo hadda socda amaba lala qorshaynayo iiraan in lala yeesho islamarkaasina go'doomintii ciidamada badda ee maraykanka ku hayaan iiraan ay weli sii socon doonto. waa hagaag daawadayaal, sheekada ugu dambaysa ee barnaamijka qubanaha ee caawa aan kusoo qaadanayno waxay ku aadan tahay lamaano Maraykan ah oo isqabay in ka badan 80 sano ayaa dhigay rikoor cusub oo caalami ah iyagoo noqday lamaanaha isqaba ee nool ee isku darka da'doodu ay ugu weyn tahay dunida. Lyle Gattinis oo 108 jir ah iyo xaaskiisa Eleanor Gattinis oo 107 sano jir ah ayaa waxay isku barteen jaamacadda Clark Atlanta sanadkii 1941 waxaana ay isguursadeen 4 bishii June 1942. buugga waxyaabaha dhif iyo naadirka ah lagu kaydiyo ayaa waxa uu sheegay in isku darka da'dooda lamaanahan ay gaarayso 216 sano iyo 130 maalmood, halka guurkooduna uu socday in ka badan 83 sano. Lyle xilligii dagaalkii labaad ee adduunka wuxuu ka tirsanaa ciidamada Maraykanka waxaana loo dilay Talyaaniga, halka Eleanor ay New York ay uga shaqaynaysay shirkad samaysa qalabka diyaaradaha. dagaalka kadib waxa ay noloshooda ay ku dhisteen New York waxaana ay dhaleen 3 carruur ah. Eleanor waxa ay shahaadada doctorate-ka ay ka qaadatay Fordham University iyada oo 69 sano jir ah. hadda waxa ay ku nool yihiin Miami. markii la weydiiyey sirta guurkooda dheer, Eleanor waxa ay tiri waan isjecelnahay, halka Lyle isna uu yiri waxaan jeclahay xaaskayga. tani waa sheeko aad u saameysay in badan lagu faaqiday baraha bulshada si weyn loogu faaqidayo iyada oo dad badan ay isweydaarsanayaan sheekadan. wixii aragtidaada ah qaybta hoose ee nagula wadaagi kartaa. wayna kulan dambe barnaamijkii qubanahan intaas ayuu ku dhan yahay. nabadgelyo.